xiisadaha gobolka bariga dhexe ayaa cirka ku shareeran labadii sane ee dagaalka Gaza uu socday waxa laga digay dagaalkan inuu faafo imika calaamado iyo fafaalo dagaal mar kale qarxa ayaa muuqda ma wax dhex mari doona Israa'iil iyo Iiraan mise Mareykanka ayaa duulaan ku qaadi doona Iiraan arrimahani waxay soo xoogeysteen tan iyo markii horaantii toddobaadka aynu ka soo gudubnay Mareykanka cunaqabatayn oo dhabarka ka riixayo lagu soo celiyay Iiraan inta aan idin soo gudbin xubinta falanqaynta oo aynu ku eegayno shuruudo hor leh oo Mareykanka uu gudbiyay Iiraan waxaynu ku hormaraynaa dhaqaaqyada military ee Mareykanka oo ka wada gobolka bariga dhexe gaar ahaan agabka military ee la keenayo saldhigyada militariga uu ku leeyahay gobolka gaar ahaan dalka Qatar oo saldhigga ugu weyn uu ku yaal waa saldhigga Al Udeyd warbaahinta Mareykanka iyo Israa'iil ayaa soo wariyay in Mareykanku si muuqata u kordhiyay diyaar garowgiisa military ee bariga dhexe kadib markii la geeyay diyaaradaha shidaalka hawada ku siiya diyaaradaha kale talaabadani waxay imaanaysaa iyadoo xiisada gobolka sii xoogaysanayso iyo dood cusub oo ku saabsan siyaasadda Mareykanka ee dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Gaza sida uu daabacay warsidaha Newsweek waaxda dagaalka Mareykanka ayaa dhawaan ku daadguraysay gobolka tiro badan oo kamid ah diyaaradaha KC-135 kuwaas oo muhiim u ah si wadida duulimaadyada hawada fog khubaro falanqeeya ayaa talaabadan u arka mid taxadar ah oo loogu diyaar garoobayo haddii dagaaladu balaartaan waxa la xasuustaa in talaabooyin la mid ah la qaaday ka hor intii aysan qarxin isku dhaca u dhaxeeyay Iiraan iyo Israa'iil bishii Juun danka siyaasadda madaxweyne Donald Trump oo markii hore ku soo galay ololaha doorashada inuu deminayo colaadaha caalamka ayaa lagu soo waramayaa inuu isku dayayo istiraatiijiyad balaaran oo lagu soo afjaro colaadaha gobolka balse waxaa laga cabsi qabaa inuu abuuro colaado hor leh sida Afghanistan, Venezuela ama duulaan lagu qaado Iiraan si kastaba maamulka Mareykanka ayaa wajahaya cadaadis gudaha ah iyadoo warbixino badan muujinayaan hoos u dhac ku yimid taageerada Trump gudaha dalka halka ra'yiga shacabka Mareykanka uu isbedelay saameynta baraha bulshada awgeed khubaro badan ayaa isbedelkan ku tilmaamay mid ay keeneen muuqaalo iyo xogaha si toos ah loogu baahiyo internetka taasoo cadaadis siyaasadeed saartay Washington arrintani waxay ku qasbaysaa maamulka inuu isku dheelitiro xulafada dhaqameed iyo dareenka cusub ee dadweynaha inkastoo kordhinta diyaaradaha military ay muujinayso rabitaanka Mareykanka ee ka hortaga dagaal balaaran haddana khubaradu waxay ka digayaan inay abuuri karto aragti ah in Washington si qoto dheer ugu lug yeelato xiisadaha bariga dhexe toddobaadyada soo socda ayaa loo arkaa kuwa go'aamin kara in Mareykanku ku jihaysto dejinta xaaladda ama uu si toos ah ugu lug yeesho xaaladda si cakirmaysa haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falanqaynta oo aynu aaraaba ku soo qaadano macluumaadka iyo xogaha ay bixiyaan qobrada dhanka militariga dhanka istiraatiijiyadda ciidanka arrimaha diblomaasiyadda iyo waliba sirdoonka xubintan maanta waxaynu ku eegaynaa Mareykanka oo shuruudo adag u gudbiyay Iiraan tani ma horseedi doontaa dagaal haddaba aynu eegno warbixin arrintan la xiriirta Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa in uu u bandhigay Iiraan 4 shuruud oo waaweyn oo uu ku doonayo in Tehran ay aqbasho si loo gaaro heshiis mustaqbalka warbixintan waxaa qortay jariirada Washington Post oo soo xiganaysa mas'uuliyiin Amerikaan ah shuruudahaasi waxaa ka mid ah in gebi ahaanba Iiraan ay joojiso naaxinta uraniumka in la xadido barnaamijka gantaalada Iiraan in la joojiyo taageerada kooxaha iska caabinta ee gobolka iyo in Tehran ay si toos ah ula fariisato Washington dalabaadkan ayaa waxay ku soo beegmayaan iyadoo cadaadiska cunaqabataynta ka dhanka Iiraan la kordhinayo si loo adkeeyo cadaadiska dhaqaale iyadoo ujeedada ay tahay in Iiraan lagu qasbo miiska wada hadalka inay timaado hase yeeshee Tehran si degdeg ah ayay ganafka ugu dhufatay shuruudahaasi Ali Larijani xogayaha golaha ammaanka qaranka ee dalka Iiraan ayaa shaaciyay in Mareykanka si gaar ah u soo jeediyay in la dhimo masaafada gantaalada Iiraan laguna soo kooba in ka yar 500 oo kiiloomitir hadda waxay xadkoodu u yahay 2000 oo kiiloomitir haddii laga dhigo in ka yar 500 oo kiiloomitir macnaheedu waxay tahay in aysan gaari karin Israa'iil taas Iiraan waxay ku tilmaamtay mid meel kordhaca qayimka Iiraan qorshaha horodhaca ee Mareykanka waxaa lagu soo daray shardi qof sharaf leh weligiis uusan aqbalayn taasi oo ah in la dhimo masaafada gantaalada laguna soo kooba in ka yar 500 oo kiiloomitir
taasi ma mid ku habboon Iiraan ayuu isweydiiyey Cali Larijani isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri dhibaatadu waa taas waxayna tahay in ay keeneen shuruudo aan la aqbali karin hogaamiyaasha Iiraan oo ugu horeeyo hogaamiyaha sare Ayatollah Ali Khamenei ayaa marar badan ku adkaystay in naaxinta uraniumka iyo horumarinta gantaaladu ay yihiin xuquuq qaran oo aan laga tanaasuli karin qobrada falanqaysa arrimaha siyaasadda iyo militariga ayaa waxay sheegayaan in xitaa sanadihii 2020-2021 markii doodaha ay ka socdeen heshiiskii JCPOA ee u dhaxeeyay Iiraan iyo waxa loogu yeero quwadaha waaweyn dawladdii madaxweynihii hore Iiraan Xasan Rouhani weligeed ma aysan aqbalin fikirka ah in la xadido masaafada gantaalada shuruudaha Mareykanka waxay sidoo kale ku baaqayaan in la joojiyo taageerada dhaqaale iyo midda tababarka ee kooxaha gobolka sida Hezbollah iyo kuwa kale ee Iiraan ay siiso Iiraan waxay ku doodaysaa in xiriiradaasi ay qayb ka yihiin xaalad difaac oo aan cid kale xukumi karin diblomaasiyiin reer Yurub iyo falanqeeyaal ayaa waxa ay ka digayaan in shuruudahan adag ee Washington ay keeni karaan in wadahadalladu ay xirmaan isla markaasna ay dhalin karto suurtagalnimada dagaal mar kale qarxa gaar ahaan weerar culus oo Israa'iil ay fuliso waqtigan labada dhinac waxay u muuqdaan kuwa ku adkaysanaya mowqifkooda Washington oo ku tiirsan cadaadis iyo Tehran oo ku adkaysanaysa madax banaanideeda ayaa laga yaabaa xiisadda gobolka bariga dhexe oo markii horeba kacsanayd inay uga sii daraan taasi oo noqon karta in ay xirmaan albaabadii heshiis dhanka diblomaasiyadda lagu gaari lahaa isla markaasna dhabaha u xaarta dagaal toos ah